السلام الله عليكم. سلام كبعدي waxaan rabaa inaan kula wadaago fariin yar oo ku saabsan hooyo. fadlan qisadani hooyada awgeed u faafi oo u gaarsii asxaabta kale. qisadan aan rabo inaan kula wadaago waa qiso ku dhacday wiil dhalinyaro ah, waana qiso dhab ah. dabcan wiil dhalinyaro ayuu ahaa, da'dan wuxuu ku jiray dhalinyaronimada ee shabaabka ama da'da qaangaarka. da'diisana waxay u dhaxaysay 15 ilaa 22 jir. waxa uu aad u jeclaa inuu wareego, banaanka ku wareego. joogista gurigana aad ayuu u dhibi jirtay. kaaga sii darane waxa uu jeclaa inuu habeenkii xilli dambe yimaado. markii uu soo daaho, hooyadiis ayaa canaano jirtay oo ku qaylin jirtay, laakiin asaga aad ayuu dhibsan jiray. hooyadiis habeen walba uu soo daaho waxay dhihi jirtay maxaad u soo daahday, ilaa uu gaaraa canaanta iyo hadalka iyo qaylada hooyadiis inuu dhibsado in uu yimaado guriga ilaa ay ka jeefataan. waxaan ognahay dhalinyaro badan oo maanta jirta in inta waalidka soo joogo guriga aana tagaynin, markay jeeftaan inaan tagayno. wiilkii wuxuu bilaabay inuu guriga yimaado xilli dambe ilaa hooyadiis ka jeefataan oo go'aan wuxuu gaaray guriga inuusan imaanin. balse hooyadiis waxay qori jirtay warqad, waxayna ugu dhigi jirtay irida guriga, waxayna ku qori jirtay hooyo cashada halkaas ayay ku jirtaa, noocaasna waaye. habeenkii wuu soo daahaya, wuu imaanayaa, warqadda ayuu akhrisanayaa, kabacdina cashadiis ayuu raadsanayaa, waa uu cunayaa. hooyo habeen walba waxay ku qori jirtay warqadaas ayay qori jirtay. waxaan dhacdana muddo inaysan arkin asagii hooyadiis xilliga habeenkiia. maalintiina wuu hurtaa, habeenkiina waa uu soo jeeda oo caweys iyo dhalinyaro ayuu waqtiga la soo qaadanayaa. intaas ka bacdi waxaa dhacday habeenada ka mid ah in warqad ay u qorto hooyadiis ka duwan tii hore ay qori jirtay. waxayna ku qortay hooyo si aad ah ayaan kuugu baahanahay ee markaa timaadida kici. laakiin asaga oo hurdaysan oo habeenkaasi la soo cashiyay saaxiibadiis ayuu warqadii fiiriyay. aad iyo aad ayaan kuugu baahanahay kici ayuuna ka akhriyay. inta kalena muusan sii dhammaystirin ee wuu iska jiiftay. subaxdii waxaa soo kacay guriga qaylo iyo buuq. aabihiis oo qaylinaya ayaa kiciyay, wuxuuna u sheegay hooyadiis inay geeriyootay oo waxaa la geeyay meeshii gurigeeda rasmiga ah. baroor iyo ooyin uu ku dhago, wax walba uu sameeyo, uu iska soo laabtay. sariirta ayuu ku aruuray, murugo iyo walwal wax badan ayuu noloshiisa caasiyay oo u naxay oo u kurbooday. waxaa ku soo dhacday warqadii xalay ku dhaganeed jikada inuu dib ugu laabto oo akhriyo, balse warqada qaybta hoose waxaa ku qoran hooyo aad iyo aad ayaan kuugu baahanahay, waan xanuunsanayaa hooyo, naqaska ama neefta igu dhagan, si kici markaa timaado si aad isbitaal igu qaado hooyo, caawa ayaan kuugu baahanahay. laakiin waa uu ka shallaayay. haddii uu warqadaas akhri lahaa waxaa laga yaaba hooyadiis inuu maanta badbaadin lahaa. maysan dhicin. walaalayaal, intaan dhalinyarana nahanay waxaa loo baahan yahay, ama inta aan nool nahayba, waalidkeen xaq badan ayay nagu leeyihiin. fadlan waalidkeen aan daryeelno oo aan xaq siino oo aan u aragno markasta dagaalka iyo hadallada ay anaga danteena iyo mustaqbalkeena noo leeyihiin inaysan ahayn wax xun, ay taho keliya mid anaga nagu waaninayaan oo ay nagu horumarinayaan. waxaan ogsoonahay dhalinyaro badan oo maantay da-aadaas ku jirta in laga yaabo in muuqaalkayga uu gaaro. fadlan gaarsii oo sheergaray qisadan hooyada awgeedna u sheergaray. waxaana kaa codsanayaa inaad sidaas si lamid ah channelkayga aad subscribe garayso si muuqaalo kuwaan oo kale aan ugu dhiirado inaan kula soo wadaago. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.